توديو يتودي درين كودي دايما دودبا مركا فيري عنقا يركا سيدو محكمة كل احنا قناي بل إلى فيري وحو رادينا يا قفك هو يديس دلي أيو رادينا يا محكمة أيو ندح تاقين يا قفك هو يديس دلي وحال سيوي دينا يا سؤالها سو كمد ما أركيسي هو يدا قفك دلي هو يدا سيدي اللو دلي هو يدا سيدي اللو قبي هو يدا سيدي اللو عذابي نيكي هو يدا دلي قولك أو حمو كو قبي والعشاء بس قولك اللو قبي أيو كو قبي waxyaabo aan macquul ahayn caruur aan la weydii karin ama su'aalo aan la weydii karin ilmaha siriyarka gabadha ugu weyn waa 12 jir hal cunug qaan gaar kuma jiro waxa la weydiinayaa su'aalo loogu talagalay in la weydiiyo 60 jir ama 50 jir warmuwadan muslim ahaan warmuwadan bini aadan ahaan war Soomaaliya caruurta siriyarta ayaga kala sixnaa bal ila fiiri mar labaad cunuga bal fiiri wuxuu dadka ka dhaxraadinaya ninkii dilooyadiis nin rag qoyis la dilay dareenkii uu qaadi lahaa ayna laga rabaa in aan qaadno Soomaaliyeed meel walba adduunida aan ka joogna Luul Cabdi Casiis waxay ku jirtaa filim jeer waa taqaaniin muddo ku dhawaada 20 cisho iyo ka badan qaaf rabbak ittaqullah ilaahay laga cabsado war muslimnimada saas ma istilmaamayso ma astaynayso war lacag wax ma dad baa waxay dheen 200 kun baa ka dhiibanaa diyaa 300 kun وبايدل وقيمدل لما فيرنا عروتاس ابودا دنتين هويدودا دنتين وروا السويدينيا waxaan idin ka codsanaa Soomaaliyeed waxaan idin ka codsanaa wiilkaas yarka ah bal fiiriya ninka oo raadinay war waa hooyadeen lul intii nin ragay war hooyada dilay sida noqon war wiilkaas libaaxu hal maaha laba maaha libaaxu waa hal niran waay ragga uu go'anaya cunugan uu ciishoonaya uu cabanaya uu ciilka binaya marka cunuga yarka hal garab istaago war aan wada baxno war aan wada tagno guryahan wada fadhinaa war xaq laga galay caruurtan wada jeedaan bal fiiri cunuga yarka inta fiiriyo oo raadisid cali ayaa wajigiisa qabanay markuu soo jeesto oo go'anaya furto qaniinaya oo ciirka binay wuxuu raadinaa meel oo gacanta ku dhufto ama xusulka oo saarto oo saas dhoo raadinaya abti macaan noolo waa weynaanaysa ninkan doo 20 jir ahaa maanta ama uu dhex taagnaa laha maxkamadda su'aalahaas laga weydiinayo waxaan aaminsanahay ninkan inuu u tilaabsan lahaa ka tilaabsan lahaa jaranjarada maxkamadda wareega ah inuu ugu tagi lahaa booska uu taagan Said Cali ay gacantiisana gaari lahayd I'm so sorry aada ugu xumahay cunuga tabar male awood male codkiisa meel dheer ma gaaro maxkamadda awoodiisa ah ummadda awoodooda ah laakiin wax garab istaago waay xaqku ciil badana calafkayga xuma xaqku ciil badana calafkayga xuma abti macaan nasiibkiina qabtiin tala waa ilaahay taladiina ilaahay u dhiibta waxa idin qabto waa la adiin waa idin jeedna laakiin awood madina anaga waxa idin kugu qaban yaa awood lamaanta oo Soomaaliya deganaanshaha amniga qaalim siyaasadeed ba Allah siiyo qulubtada Allah isku duma Allah walaalay Allah mideeyo maxaa yeelay maanta wadankeena Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waxay u dhuratay الظالم ومظلوم كو ظلمية وفاجر أو حد قدبي والله يرسولك سكفتي يمد مظلومة أو لو كرتنطو أو لو توجيو أو للدلو أو لدعو أو لكفصدو أو لبركعيو marka sida daraadad kuwa madluumiinta amar walba waxaan ku aaninayaa in ay gacmaha kor u horsana maxaa yeelay ducaa ul madluum mustajaba step two step baby steps kalsooni ayaa teestaa la yansurannaka walaw ba'da al-hiin wattaquu dhulma waxyaabo badan ayaa teestaa الظلم ظلمات يوم القيامة وحبذنا بلنقاذا هيستا مظلومو وحبذنا بلنقاذا هيسلم كمر والبعضيقة هذا اسكت عنكرين قعما قرؤه هورسو خالق السماوات والأرض ودر فرينتا هذا عدك لها الدعوون قبيل وحمكاغا قوانايو قرن وحمكاغا قوانايو دولد وحمكاغا قوانيسو عد وحكاغا قوانيسو إلا خالق السماوات والأرض وخالق الكون كلها أيا وحكاغا قوانايو marka sida daraadeed walaalaha dhammaan madluumiinta ah waxaan rabaa in aan faro in ay gacmaha kor u horsadaan oo rabbi ay u taagtaan marka musalsalkii bariyaan ka socday magaalada Muqdisho gaar ahaana ku saabsanaa maxkamadii Said Cali
sida fiican u jilayay ninka la yiraahdo abukaata xalane ayaan rabnaa beentii haddana lasoo dhoobay iyo wixii isku soo duubariday wax yar inaan ka daawano ka bacdina wixii aan ka dhigi karno aan ka dhaana haddii allaha awooda la yiraahdo waxaan arkay iyadoo gubanayso oo maxay dadkii wada haysto dharkeeda dhan dadka wada haysto marka waa dareemi kartaa qof gubanaya markaa aragtid marka u horeysa marka sidaa ugu bedami karo falankeedaan galay waana ku guftay laftarkeyga waana ka damiya akharkii dab marka ayada ah qolka dhexdiisa dabka saarnay ama dabka ka muuqday soo la ekaay qolka uu gubanayay ilaa kor dabka xoogaa waa gaaray maxay ahayd alaabta dhanna way gubanaysay maxaa xigay markii aad la kulantay ay gubanayso waxaa xigay intii karaankeyga aan awoodo inaan dabkii ka damiyo gacanta la galo dadkii gubanaya ka siibo maxay ahayd soo wado banaanka keeno kadibna maxay ahayd ilmihii soo bixiyo banaanka aan keeno kadibna maxay ahayd dad iridaan ka furay meesha soo istaagay sayiri bar maxay xijaab u soo gelay oo orday xijaabaan u soo geliyey intaa waxay ka dambeeyey waxaan la kulmay hanjabaado maxay ahayd dad oo ihanjabaya oo lagu dilayaa oo ku dilaynaa waxsaasa la kulmayo marka meesha igu dambeysay baan beenaale ilaaha been u sheegtay waxaa la yiri markii waraabaha uu xaakim noqdo ariga gar miyuu helayaa ama xaqiisa ma helayaa kii wax guway ee dilay ee kas imaag u sameeyey ee batroolka soo gatay ayaa misna leeyahay maxaa suubisay maxay ahayd waa mujrimka kale xalane la dhaho waa u jeedin asagana dhaalim weynaade waaye waa dareemi kartiin yani aad sheegaysaa in aad 6 caruur badbaadisay iyo hooyadood abukaate su'aashaasi maxkamaddu kuma ogola si waafaqsan qodobka 131 ee xeerka habka ciqaabta sababtoo ah waa su'aal afgalis oo jawaabta aysan u bixinaya afkaad u gelisay saddex ka gudub maxkamadduna ma qorayso su'aashaasi kale hadaa weydiisanaysid u weydiiso